qoran tahay wejigaaga. Wax kasta oo aad isku daydo inaad qarisaa waxa uu ku qoran yahay wejigaaga. Haa, waa run, ma aha wax indhasarcaad ah, waa wax weligii jiray, balse adiga ayuunbay cilmiga iyo aqoontaasi kaa maqnayd. Tirakoobyo iyo cilmi baadhisyo badan oo la sameeyey ayaa caddeeyey inuu xidhiidh xoogani ka dhexeeyo muuqaalada wejiga iyo shakhsiyadda qofka. Waxaa laga yaabaa inaad hore u ogaatay in dadka isku eega ay leeyihiin dabeecado isku mid ah ama ugu yaraan ay wadaagaan dabeecadaha qaar. Intee in leeg ayay saxsanaan kartaa akhrinta wejiga qofku? Markii tirakoobyo iyo cilmi baadhisyo aad u xoog badan la sameeyey, natiijadu waxay noqotay in boqolkiiba 68 shakhsiyadda qofka lagu ogaan karo muuqaalada wejigiisa, taasi oo ay weliba saxsanaanteedu aad u sarreyso oo ay boqolkiiba 70 sax tahay. Cabirka debnaha ama bishimaha iyo shakhsiyadda qofka. Debnaha ama bishimaha waaweyn. Marka loo eego cilmiga akhrinta wejiga, qofka debnaha waaweyn leh waxaa lagu sheegaa inuu yahay qof aad u hadal badan. Waxa aad u adag inaad aragto isagoo aamusan. Wuxuu jecel yahay inuu wax badan hadlo, sheekooyin badanna ka sheekeeyo, wuxuuna u noqdaa wehel aad u fiican kooxda uu la socdo. Balse haddii aanu la socon koox si fiican u dhageysanaysa, waxaa laga yaabaa inay kooxdaasi dhibsadaan oo ay ka xanaaqaan hadalkiisa badan. Marka aad rabto inaad hesho qof jiho ama meel kuu tilmaama, waxaad dadka ka dhex doorataa qof bishimo ama dibno waaweyn leh, sababtoo ah wuxuu xog buuxda oo fiican kaa siin doonaa meesha aad rabto iyo sida loo tegayo. Qofka dibnaha ama bishimaha yar leh. Qofka debnaha yar lehi waa qof afgaaban oo aan hadal badnayn. Waa qof noloshiisa u gaarka ah aan dadka la wadaagin oo ka socda. Badanaana waa qof qarsada dareenadiisa. Sidoo kale, qofka debnaha yar lehi waa qof qariya siraha sanado badan. Lamana mid aha qofka debnaha weyn leh oo ay aad u adag tahay inuu siraha qariyo. Wax ka xoog badan oo ku qasba inuu siraha sheego mooye. Qofka debnaha yari waa qof ku adag siraha laguna aamini karo. Laymamka wejiga. Laymamka fooda hore ee wejiga ku yaala waxay wax badan ka sheegaan shakhsiyadda qofka. Marka la akhriyayo wejiga, laymamka qofka wejiga hore kaga yaala waxay sheegaan in qofkaasi uu yahay qof caqli badan oo maskaxdiisu aad u awood badan tahay. Tan waxaa tusaale kuugu noqon kara Albert Einstein. Ma rabtaa inaad sii ogaato muuqaalada kala duwan ee wejiga iyo waxyaabaha ay qofka shakhsiyaddiisa ka sheegaan?